بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما أذكر تبارك وتعالى إنه نعمي خيرات بدنا ينوافجيه يساوي تسنينا إنه دمشتره إنه ندايو نعم كيسة إنه نسياديو. waxaa farxad weyn oo lalayaal inaan idiin soo gudbiyo mashruuca dibudhiska masaajidka Abubakar Sidiiq ee loo yaqaano 6th Street xaafadda Islii magaalada Nairobi. masaajidkaas oo caan ah la yaqaano waayahan dambana dadkii xiriiri ku noqdo deeqi waayay mashquul badan ah, aad u mashquulsan, meel istiraatiiji oo aad muhiim ah ku yaala. waxaa laga maarmi waayay masaajidka in dib loo dhiso. hawshaas ayaan guda galay. ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala meel fiican bay maraysaa. laba weji ayaan u qaybinay. wejigii koobaad baa hadda qoditaankiisa socdaa oo dhismihiisa la bilaabay. qaybta labaadna qaybtaasi wejigaa hore markuu dhammaado oo in lagu tukado uu bilaabo ayaan insha allahu tacaala wejiga labaadna bilaabi doonaa insha allahu tacaala. masaajidka wuxuu ka kooban yahay masaajidku 8 dabaq oo dhulka ka koreeya iyo 2 dabaq oo gudaha ku jira hoos ku jira. 10ka dabaq buu ka kooban yahay design-kan ama plan-kan dambe ee dhismihiisu. إن شاء الله تعالى waxaan rajaynaynaa waa mashruuc aad u weyn inuu ilaahay noo suurta geliyaan rajaynaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. masaajidda hadda dhismaheeda haddaynu muslimiin nahay aad baynu u naqaanaa khayraadka iyo wanaagga ku jira. nabigeena sal alla alay wasallam sida ka sugan, ruuxii masaajid ilaahay dartii u dhisa jannada guri looga dhisaa. qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu noogu sheegay masaajidda waxaa camira dadka iimaanka leh ee hanuunsan. labadaasaa ilaahay uga markhaati kacay. nabigeenu sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid, shaqadii ugu horeysay oo qabtay waxay ahayd inuu masaajidkiisii dhisay oo bilaabay. masaajidu marka meel adag oo muhiim bay kaga jirtaa nolosha muslimiinta. maanta jaanis weyn bay inoo tahay masaajidka sigiska oo kamida masaajida ugu camirnaanta badan adduunka inaynu dhisidiisa wax ku darsanno oo ehelkeena wax ugu darno oo nafteena wax ugu darno oo laga yaabo 100 sano laga faa'iideysan doono insha Allah taala diba ilaahay adduunka daayo inay inoo socoto oo qabriga iyo aakhira iyo inoo socoto. barnaamijkaas ayaan idin soo bandhigayaa insha Allah taala si aynu uga wada faa'iideysano. wajigan hore iyo qaybta hore masaajidka qarashka ku baxaya waa 3 milyan iyo 500 kun oo dollar. halkii sijaayad ama halkii meel oo ruux ku tukan karo waxay ku qiimeysan tahay 450 dollar ayay ku qiimeysan tahay. waa wajiga hore 1 sano iyo badh buu socon doonaa insha Allah taala. wajiga hore ee hadda bilowday qoditaankiisu arkaysaan. qaybtaasi kadib baa wajiga labaadna bilaaban doonaa, isaguna waqti buu socon doonaa insha Allah taala. waxaan rajaynayaa jaaniskaasi inuusan ina dhaafin oo aynu ka faa'iideysano. masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxa la gashado waxay ku kala khayr badan yihiin kullu masaajidka iyo goobtaas sida looga faa'iideysto, sida loogu cibaadeysto. masaajidkan sigiskuna wuxuu caan ku yahay cibaado kaliya ma aha iyo salaadaha waa mu'assasa u taagan mashaariicda ummadda oo dhan masaalixdeeda ah. waxaad garanaysaan dowrkii iyo kaalintii uu ku lahaa masaa'ibtii ummadda qabsatay yani ka qayb qaadashadeeda, hadday tahay abaarihii, hadday tahay fatahaadihii, hadday tahay masaa'ibtii qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii dhacay. waa masaajid dowr weyn ku leh iyo kaalin weyn kaga jira waxu qabadka mujtamaca muslimka, khaasatan mujtamaca Soomaaliga oo u badan dadka masaajidka ku cibaadeysta, dadka ka faa'iideysta, dadka garab taagan, dadka xataa asalkiisiiba boosaskiisa iibiyay u badan. sidaas daraadeed haddana waa jaaniskii labaad oo insha Allah tacaala aan jecel lahay in aad ka faa'iideysataan. ilaahayna tabaaraka wa tacaala idin waafajiyo. waxaan jeclahay insha Allah tacaala in aad wixii aad soo direysaan aad ku soo dirtaan insha Allah tacaala magacyadan soo socda wixii masaajidka aad ku darsanaysaan
magaca koobaad cabdirashiid axmed telefoonkiisuna waxa weeye waa eber 7 22 39 5555. magaca labaadi waxa weeye waa hilaal shariif weyd, asagana waa eber 7 22 22 58 92. labada magac baad soo isticmaali kartaan, xawaaladaha kaad rabtaan oo idin fudud baad wax ku soo diri kartaan insha Allah taala wayna soo gaari. nambarkiin haddaad soo raacin kartaan telefoonkiinana waa fiican tahay si markayna soo gaadho insha Allah taala aanu message idin ku soo dirnayo fariin in lacagtaasina soo gaadhay. haddii aydan soo dirin insha Allah taala kulay haddii xawaaladuna soo gaarsiiso waxaad ogaanaysaan in meeshii aad ugu tala gasheen ay gashay insha Allah taala. waxaa kale tood ku soo hagaajin kartaan dadkiina inta badan muxuu ahaayay ay u suroobi kartaan wadanka gudihiisa jooga ama ku soo diri karaya muxuu ahaayay bangiga masaajidku wuxuu leeyahay account leeyahay bangiyada ku leeyahay. bangiga hore waa First Community Bank, numberkuna waxa weeyaan waa 999 1425 waa First Community Bank. ka labaadi waxa weeyaan waa Gulf African Bank, isagana accountku waxa weeyaan numberkiisu waa eber 8 hal eber 19 eber 2. Gulf African Bank isla magaca laftiisa weeye Abubakar Islamic Center Trust ayaa idin soo bixi doona insha Allah taala. waxa inta dheer dadka ay u suroobi karto inay Liban Ambesa inay ku soo diraan oo muxuu ahaayay iyagana suurtagal u tahay. till number waxa weeye waa 5 3 7 6 3 9 waa till number. accountka waxaad gelin magacaaga ama numberkaaga kadibna sidaas insha Allah taala ku soo diraysa wuxuu ku soo dhacayaa magac masaajidka kadibna accountkiisa toos u galaysa lacagtu. siyaabahana waad ku soo diri kartaan ama accountnada ama till number yani Liban Ambesa kolba tii idin soo rowda wax yar iyo wax badan wixii Ilaahay agtiisa aad ula baxaysaa ma yara. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wixii wanaaga ha yaraysanina. Ilaahay tabaaraka wa taala waxaad baxsataan haydin barakeeyo, waxaad reebataan Allah tabaaraka wa taala haydin barakeeyo. ehelkiina caruurihiina diintiina aakhiradiina iyo adduunkiina Allah idin ku xifdiyo, khaatumada Allah idin ku hagaajiyo. Ilaahay tabaaraka wa taala sharka adduunyo mid aakhiro dhibaatooyinka dhacaya Ilaahay tabaaraka wa taala idin kaga xifdiyo. qabriga qiyaamada aakhiro inta uu meesha laga faa'iideysanayo masaajidka isaga Ilaahay tabaaraka wa taala ajirkeeda iyo khayrkeeda ha idin siiyo. waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad jawaab fiican idinka heli doono. mashruucana kulli wuu dhismi doonaa sidaan Ilaahay uga baranay tabaaraka wa taala. inagay dan inoogu jirtaa wadanteena iyo maslaxadeena inaynu wax ku darsanno isaga iyo wixii mashaariicda la midka Ilaahay loogu dhawaanayo. waad mahadsantihiin, jazakumullahu khayran. waxaan iska sugnaaba waa jawaab fiican iyo gacan furan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.